xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA ayaa ciqaab adag ku soo rogtay wadanka Ruushka waxaana laga xanibay ka qaybgalka koobka adduunka ee dhamaadka sanadkan lagu qaban doono wadanka Qatar kadib maalmo culays badan oo dhinac walba lagu hayay FIFA si ay u qaadato go'aan ay Ruushka kaga saarto israabka koobka adduunka waxa uu dambeyntii FIFA ku raacday dunida inta kale in ay xayiraad saarto dalalka Ruushka iyo Belarus FIFA ayaa badasho go'aan hore u qaadatay oo ah in Ruushka uu sii wato israabka koobka adduunka hatta iyada oo dalalka isku gruubka yihiin ee Poland, Sweden iyo Czech Republic ay diideen inay la ciyaaraan xulka wadanka Ruushka. madaxweynaha FIFA ayaa bedelay warkii hore waxaana uu ku waafaqay UEFA in dhammaan ciyaaraha kala duwan ee kubadda cagta laga joojiyo Ruushka waxaana war saxaafadeed wadajir oo maanta ay soo saareen FIFA iyo UEFA ayaa lagu sheegay in aan tariyaasha ciyaaraha lagu arki doonin xulka qaranka Ruushka iyo kooxdiisa intaba tartamada laga joojiyay waxaa ka mid ahaa koobka adduunka Euro oo dhinaca xulka ah in naadiyada oo ay ka qayb gali dooneen tartamada Champions League, European League iyo Conference League waxaana tan ay noqonaysaa ciqaab adag oo ay la kulmeen ciyaartoyda u dhashay wadanka Ruushka tani markii uu bilowday dagaalka Ruushka uu ku qaaday wadanka Ukraine caalamka oo dhan waxa laga taageeray in laga joojiyo dagaalka lagu qaaday wadanka Ukraine